بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. walaalayaal ugu horeyntii ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala eebbaweynihii inoo suurtageliyey annagoo caafimaad qabna caafiyana ku sugan inaan isugu nimaanno goobtan quruxda badan qaabaysan oo qalabaysan. mahadda rabbi subxaanahu wa tacaala kadib waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idinku soo dhoweeyo mu'tamarkan qiimaha badan ee kii saddexaad ah oo ay soo qaban qaabisay mu'assasatu ansaaru sunna. fududaynteeda iyo idamkeeda iyo fasaxa mu'tamarkaana laga helay dowladda Somaliland, wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda kala duwan oo dhan. dhammaantiin soo dhowaada mu'tamarkaa ku soo dhowaada. culimaa diinka mu'tamarka qayb qaadanaysa anigoo maamuuskooda iyo sharaftooda ilaalinaya waxaan leeyahay soo dhowaada. madaxda inala joogta nin walba magaciisa, maqaamkiisa iyo mansabkiisa anigoo ku salaamaya waxaan leeyahay soo dhowaada. ganacsatada, salaadiinta inala joogta, dhalinyarada, ragga iyo dumarka, bahda saxaafadda, dhammaan ka soo qaybgalayaasha soo dhowaada. gacmo furan, qalbi goba, gogol xariira, kalgacayl, jacayl, xurmad, xushmad, walaaltinimo iyo wanaag ku soo dhowaada. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo dhammaantiin. mu'tamarka maadaama uu yahay mu'tamar international ah, hadda luuqadaha internationalkaana waa inaan idinku soo dhoweeyaa. soo sidaa ma aha. yuscidunii ويشرفني ويسرني أن أرحب بكم جميعا ترحيبا يليق بمقاماتكم العالية السامية في هذا المؤتمر الديني الثالث الذي هو بتنسيق مؤسسة أنصار السنة بالتضامن مع وزارات وهيئات حكومة سوماليلاند. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المؤتمر الجميل الرائع المفيد بإذن الله في هرقيسة عاصمة سوماليلاند. حياكم الله وبياكم. والشكر موصول إلى جميع من ساهم في انعقاد هذا المؤتمر وفي قيام هذا العمل الجبار. نسأل الله أن يكون نافعا مقبولا. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. It is pleasure and honor to have and welcome you all to the third Islamic conference organized by Ansar Sunnah Trust in collaboration with the different state agencies and ministries of the Republic of Somaliland. Sincere and heartfelt gratitude and appreciation is extended to all those who were instrumental and helpful in convening and in the happening of this beautiful conference. Welcome now and always. Thank you very much. هذا مؤسسة maadaama ay tahay mu'asasad ka jirta Kenya, sawaaxiliga haddaan ka tagno hadhow markaan noqono ganaax baa nagu dhacaya. marka sawaaxiligina waa inay idinku soo dhoweeyaa. ni jambo la furaha sana. ni jambo la furaha sana kuwakaribisha nyote katika mkutano wa kidini wa tatu ambao unafanyika katika mji mkuu wa Hargeisa
uliopangwa na Ansaru Sunna Trust na uliorahisishwa na wizara mbalimbali katika Jamhuri ya Somaliland. Shukrani ya dhati kwa wale ambao wote walitoa usaidizi katika kufanyika wa mkutano huu kubwa wa kidini. Tunawashukuru sana. Karibuni sana nyote. Hargeisa hakuna matata. Inti kalameni nafahamina taila taha. Hargeisa hakuna matata. Hargeisa hakuna matata. Hargeisa wahdi wataka bashiran. Hargeisa hakuna matata. Sodo wada damantin Ansaru Sunna Trust K3 Islamic Conference में आप सबको खुशआमदीद करना मेरी खुशआमदीद नसीब है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. तास नो फंते नो तंबैसा वालुगत उर्दूगा साहब की खुद रायदा नंबर का सोड वादा दबाती शीरा ही दिया ऐसा करो इसका ही बंद होना. فرانسيس هم كدر لها لكن فرانسيس كوايان حالتي سما فيعنا النبي عليه الصلاة والسلام مقدسات كي بالله كري لا ياي واسكت ديني نامر كاسجة لكن لو قضاها سأنكو هلا يوردن وحا أنكا هين أردوغا وحا لغو برتا اسكولا دا يقعنت كو هيسو مؤسسة أنصار السنة نينكي هذا برا لو قضاها هين وبرتو هموغاني اسكولا دا أنصار السنة تراست يقعنت كو هيسو إن شاء الله تعالى أردوغا. لكن أنا يقلصو حجي ليسان قرش كنا واكيشين ندب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سودوين تا كدب وحايدنا ماشي كشرتا ما هذا الرب سبحانه وتعالى كدب إن أنو ما هاد نقنوه دولة الصومالي لان وزارة ده هذا يهاي ده هذا كل الدول يمدح هذا وبرنامج كان فدودي عاد بيوم هتسيهين مؤسسة أنصار السنة تراست معمول يستاف دمان وبرنامج كان يجنا قبن قابيي قلقاليي سوقر شيء هذا نقبتي يجنا ومهتسيهين دمان جنا ستدا دليردا يعيد والبحوق يحول يحالات بيسوق يسوي مؤتمر كين وقبصومه ومهتسيهين أنا قلنا أنك تجينين نول بنا ما هدنقي سوق بناية شرفتي سا يدو إلى شنطاي. جزاكم الله خيرا. مؤتمر كسيد وصو عندنا شيء دونا إن شاء الله تعالى لكن مركو هروح اللي أما أفاف هر لهو أما هي أتكيس دم بلهو مركو حرينا كأفاف تلوقد إذا في صومالي قواتي كينيا واي حوالها مركا كدع كدك بدنا كشرتا واحد بدنا بالغيا بين يقل دمان هذا هدي وحسي يقول نقدان هيقوم هذه سنين هاي قصلنا إيه صحة هل قوي تاقلوا عتيدها إن شاء الله تعالى في صومالي إنه وقتها أنك كيني مركا شغل سواحلي قاعد أحق لي مركا قارو حلقيا وين خدك أنت كبحوا في صومالي سواحلي يسن أنا إذن كل عدله في صومالي سواحلي يسن تصالح داني إذن كسيو نينك سجوا وقحضة هدور بإنه يدهدو أنا هو ماشي سي فورايا نينك لو كسر داعيا نسكت عمي لابد أن يا قلت كلها في صومالي سواحلي يسن مركا كهل لنا وحن لنا أنا باندينايا يا سو شكينايا أنيس قونجيني يا مقوسل بعدي الصومالي ساس وبرك مركل السواحلية وحلقة مرك أنتم مؤتمر كالسعودو إن إذا يراهدو هلا فريستو تفدالي سنة ما هو فضلا فريستا وحلقة أنا يقبل قشان داية كتنبيا معناه هو ما هي سعود كداية مرك قاردان حوجا ماشي خدك كبحه هلا يدل قاتي إشارة وإن هلو السعودي إشارة وفهم يستاهل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا دمانتين سود وادا إن شاء الله تعالى مؤتمر كا محسون دونا أفر مالموت سجالية طبنكا ومانتو خميسة لباتنكا بيرو جمعة كوي لباتنكو سبتدا إن شاء الله تعالى يلبي لباتنكو أحدا وقدم بيسا أو حدتانكا مؤتمر كا نقول دونتا أفرتا بري وحسون دونا محاضرات ندوات علماء شرفت بدني لوجل الدونان بإذن الله تعالى الدورات أيضا مؤتمر كدنا السعودة oo maxay ahayd kutub iyo mutuun ay culimadu ku akhrin doonaan oo xirtii ardada loo faa'iideyn doono insha Allah ta'ala aan ka wada faa'iideysano باذن الله ta'ala inta uu socdo barnaamijka waxa daadihin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Sheekh Mursal iyo walaalkay saaxiibkay Hamza Umar Kujoog labadeena ayaa barnaamijka isla daadihin doona intuu socdo باذن الله ta'ala barnaamijka waxaad si live oo kala socon kartaan page-ka Ansar Sunnah ee ku leedahay Facebook iyo YouTube-ka waxaad kala socon kartaan page-ka MMTV satellite-ka iyo social media Da'wa TV satellite-ka iyo social media insha Allah ta'ala
madaxda dhammaan waan salaamay waana soo dhaweeyey si gaarana insha allahu taala walaalkii xamse ayaa iga dambayn doona maadaama uu aad iga yaqaano insha allahu tacaala laakiin waan recognize gareeyey soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad biidni illahi tacaala marka barnaamijka si guud waa sidaa ayuu noqon doonaa maanta maadaama xafladdii furitaanka ay tahay muxaadaraadka waxaa raaci doona kelmado marti sharafka kala duwan ay inoo jeedin doonaan siyaasiyiinta iyo salaadiinta iyo culimada kelmado soo dhaweyn iyo mahadnaq isugu jira ayaa maanta raaci doona muxaadaraadka insha allahu tacaala jadwalkana maalmaha kale sidiisu u socon doonaa 8 barka subaxnimo ilaa 11 barka barqanimo 11 barka ilaa iyo 4 barka waa break waay xilligaas waxaa la yidhi meeshan dhaqdhaqaaq iyo socod lagama yaqaano marka xilligaa waa la nasanaya 4 barka haddana la soo noqonaya ilaa 8 barka fiidnimo ayuu mu'tamarka socon doonaa insha allahu tacaala maanta xaaladeedu waa khaas waxaa laga yaabaa xilli hore mu'tamarka inuu soo xidhmo maadaama dadka qaar ay iska sooman yihiin insha allahu tacaala muxaadaraadka iyo nadawaadka ilaa hadda wax fataawo sharci ah oo raacsan ma laha laakiin hadday ku soo biiraan wax allaala wixii soo kordha waa idin update garaynaynaa waa idinla wadaagi doonaa insha allahu tacaala maanta programka marka wuxuu ahaan doonaa sida caadiga ah in aayado qur'aan aan ku furfuranno kadib kelmadaha raaci doona ay leeyihiin culimada salaadiinta iyo siyaasiyiinta goobta joogta intaba marka aan si fiican u wada soconno insha allahu tacaala teleefanada insha allahu tacaala codka ha laga xidho qofkii ku hadlaayana qofka kale ag fadhiya yuusan buuq iyo tashwiish ku furin si tartiib ha u hadlo maxay ahayday socodka iyo dhaqdhaqaaqa ha la yareeyo waxaan ka codsanaynaa madaxda iyo culimada iyo salaadiinta halkan iman doonto hadli doonta inay waqtiga ilaaliyaan waqtiga waa nagu cidhiidhi marka qof walba daqiiqadaha la siiyo 3 daqiiqo 5 daqiiqo 10 daqiiqo waxay noqotaba qof walba waxaan ka codsanaynaa inuu isdeeqsiiyo waqtigiisa markuu dhamaado haddaan baraarujinana uusan ugu dhibsanin insha allahu tacaala marka jazaakum allahu khayran saasaan wada soconaynaa haddana aan u waco alqaari yaxya cabdi saciid oo inoo akhrin doona aayado ka mida qur-aanka kariimka ah tafadal sheekhna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا شيخنا شيخ يحيى قارئنا أبو مهتسيهي أننا أيضا قرآن الله نقول أنفعه هذا وحن شعله هي كلمة سودوينا إن أنسيو شيخ حسن عبد السلام إمام كمسجد عمر عثمان سودو شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرونتي آدي آدبان وفرح سنة مناسبة قيمة بدن له وحان نقول رسيني ما هدنق إله جل وعلا الذي بنعمة تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويرنتي إلهي ما أنت ما هدنق حوق لبي نقم ديهي مناسبتها يكوى كلمتك ينعموين كبدن عينان ترين كرين تردافك إلهي نقوم من استدرتيد لكن si khaas ahaaneed runtii maanta waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa nicmada isuumaatinkan iyo kulankan iyo xafladan iyo ijtimaacan diiniga ah ee ku dhacaya dalkeena iyo magaaladeena oo aan oran karo runtii waa xawiye nasiib aad iyo aad u qaaliya ilaahay baan runtii qalbiga uga mahadnaqayaa mahadnaqa ku soo noqon doona waxaan runtii kelmad soo dhaweena iyo mahadnaq isugu jirta ku soo dhaweynaya mar sharaf qiimaha badan leh halkan maanta inoogu yimid oo ugu horeyso culimadeena qaaliga ah ee dibad iyo gudaba isaga timid ee barnaamijka noo daadihin doonta runtii aad garanaysaan iga baahan inaan idiin sheego oo kaliya barnaamijka lagu taxi doono laakiin aad u garanaysaan oo xaqiiqatan waxa aclaam muuqda ah sida xidigu u muuqdaan una baahan runtii magacooda in la dhabo meel badan laga garanayo waxaan leenahay culimo soo dhawaada aad iyo aad soo dhawaada إلهينا هنقول أنفعه شوكتان كينا يكلمة ديننا داد يضلنا الله هنقول بركة يباتن كينا
ilahay waxaan ka baryaa runtii in khayr badan aanu idinka dhaxalno kelmaddiinna aanu weerino qalbiga ay gasho ay noo noqoto jurco xoog leh oo xoojisa iimaankayaga iyo daraankayaga iyo islaamnimadayada aad iyo aad soo dhowaada waxaan aad soo dhoweynayaa runtii malaha madaxda deegayna soo dhoweyn doonee maayarkii inala fadhiya guddoomiyihii golaha wakiilada inala fadhiya waxaan la fadhiya wasiirkii awqaafta iyo arrimaha diinta waxaan la fadhiyaa dhalinyartii dhalinyar bay yihiin aanu saaxiibada badankooda saaxiibanaayo xildhibaanadii cusbaa ooga soo horjeeda oo aan si gaara si ciidii oo tilmaami lahaa runtii ilaa iskuulka riis isku soo gaarnay dhowriyo xidinadii waxaan leeyahay soo dhowaada mas-uuliyiinta cusub ee xildhibaanadana aad baynu soo dhoweynaynaa waxaa xaqiiqatan kale oo soo dhoweyn badan aad iyo aad u qiib badan naga mudan iyo mahadnaqba hay-adda ansaaru sunna ee barnaamijkan runtii inoo daadihisay waxaan manaja hay-addu wayna saluugeeno dee qolyahayna halkan deganaa marka dadkii u yeeri weynay bakhaylnimo waxay naga ahaydba iyagaa waxay dhahdeen war annagaa idinka yeedhayno idin casuumine balka anigoo magaaladii arid ku marti qaadnee waa runtii waa deeq weeyi iyo fadli ina dheeriyihiin waa deeq iyo fadli runtii dheeraada oo ilaahay siiyey waynu ogol lahay waxaan leenahay waad mahadsantihiin in annaga maanta aad runtii hargeysa nagu dhex casuumteen oo aad nagu dhex marti qaadeen ood barnaamijka noo qabateen waa fadli iyo sabqi iyo horreyn iyo dheeraad ilaahay idin siiyey haniyan lakum waad ku mahadsantihiin insha allah waan idinku dayan doonaa insha allahu waxaan isku dayay casharka aad noo dhigtay aadna barteen in annaguna aanu qaadano oo aanu sanadaha dambe iftitaaxa aad noo furteen aanu sii samayno waxaana sii wanaaga oo runtii waxaa lagu faanaa maanta hargeysa ijtimaaca tabliiqa ka dhaca oo afarta beelka jahal isaga yimaado waa laga yaabaa in ay dadka ka qayb galay dadka halka jooga xoogaa si uu kala duwanaan karaan laakiinse runtii ijtimaac qiimo badan ah barako badanna leh ilaahayna aynu ugu mahadnaqayno inuguna soo dhow waqtigiisa aynu warka ku hayno oo runtii dhowaan iman doona waxaa ka horreeyey musaabaqadii caalamiga ahayd qur-aanka kariimka ee magaalada lagu qabtay ee culimo badanoo caalami ay isugu yimaadeen rag qura ah oo adduunka maanta laga yaqaano ay ka soo qayb galeen oo runtii fadli iyo inuu ahayd dheeraad walaahi alxamdu walminna kan baa inoogu xigay waa nicmoon isdabagalay isna aan odhan karo waa kulan diineed iyo waxa weeyaan baraarujin diineed oo inta af soomaaliga ku hadasha loogu talagalay inay culimmaduna ahaato dadka ka soo qayb gelayaan ay ahaadaan waa runtii tallaabo horumara aynu ilaah ugu mahadnaqayno waxaynu rajaynayaa inoo dhiman culimmadii caalamiga ahayd ee afafka kala duwan afkii imika uu barnaamijka inoogu furfuray xiriiriyaheennu inay ku hadli lahayd insha allahu taala allahayna gaadhsiiyo inay stageken iyo kuwa la midkaa yimaadaan culimmada caalamka laga yaqaano ee ku hadla afafka kala duwan carabi ingiriisi ee runtii farta la isugu fiiqo insha allahu kaan waynu ku hamiyi doonaa waynu ku fikri in ijtimaaca caynkaas ama culimmada noocaasina aynu ka soo martigelino oo ay noo yimaadaan insha allahu si ay ramsi inoogu noqdaan si ay inoogu noqdaan tilmaan si ay caalamka indhaha inoogu soo jeediyaan marar badan baynu nahnaa dadka qaarkood oo laga yaabo runtii inay mudna indhaha inagu soo jeediyaan baa indhaha caalamka inagu soo jeedinaye indhaha caalamka culimo inagu soo jeedisan insha allahu tacaala waynu marti qaadi doona waan dheereeyey waa la garab joogsa waan soo koobayaa waxaan kusoo khatimayaa guntiga gebagabadii walaalayaal soo dhowaada xaqiiqatan annaga sharaf bay noo tahay aadna waan ugu faraxsannahay inaad noo timaadaan inaad wax noo sheegtaan ereyga kooban ku khatib waxa weeyi marka la leeyahay shirka waxaa loo yaqaano meel go-aama laga gaadho waxaynu uga jeednaa markay mu'tamar diineed ama kulan diineed waa inaynu isu nimaadno innaga wax isu sheegaynaa oo marar badan masaajida wax isugu sheegnaa bannaankan inaynu wax isugu sheegno yacni kulankeennan keligii wuxuu daaran yahay wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin inaynu wax isxasuusino oo aynu diinteenna wax iska xasuusino waxaa runtii nasiib wanaagoon aad ugu faraxsanay intaasaan ku khatimayaaye mu'tamarka ama kulankeennan mawduuca loo dooray addiinu annasiixa oo aad runtii ugu habboon macnaheedu inaysan inoo sharxi doono ereyga addiin oo macnayaal badan afka carabiga ah kuli waxaa ugu muhiimsan inuu yahay hab nololeed ama hab dhaqan marka waxaa layna leeyahay diinta oo diinta islaamka oo hab dhaqan nololeed oo ilaahay jideeyey wuxuu ku dhisay waxaa loo yaqaano nasteexo af carabi waxay ka dhigan tahay nasteexadu laba macno ugu muhiimsan macaanideeda inkastay badan yihiin daacadnimo al-ikhlaas daacadnimo iyo
dadaalka ugu badan inaad u gasho badl alwusci fi iraadati alkhayr inaad dadaalka ugu badan u gasho inaad khayrka ku bixiso diintu waxay ku dhisan tahay daacadnimo waxay ku dhisan tahay dadaal khayrka loo galo waxay ku dhisan tahay wixii baylaha oo la baylaha tiriyo waxaa runtii bilmunaasaba aan ku khatimayaa xadiiskaas cidda warisay waa Tamiim Aws Daari waa run saxaabi aad u cajab badan waxaa ka mid mucjisaadkiisa inta aan ku khatimay Allahu sheekh Tamiim Aws Daari oo xadiiska warinaya mucjisaadkiisa waxaa ka mid ah nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam rasuulullah dunida waad qabsanaysaa baytul lahm meesha la yiraahdo Falastiin ku taala oo ah halka deegaankiisu ka soo jeeday aniga igu wareejiyo igu ducee aan meesha yeeshe nabigu markaa wuxuu ku yiri waan ku sii laakiin ha iibinin waa dhul ilaahay adaan ku siiyey markaan furanay markaa madiina bal la joogaayo Falastiin bal lama soo gaaro waan ku siinayaa ha iibinin ilaa maanta waxa baytul lahm waxa ka odayo ka tariya qoyska ka soo jeeda Tamiim Aws Daari ayaa ka tariya waa mucjisaadka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa saxaabi xadiiska ay wariya ilaahay waxaan ka bari ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu anfaco khayrka badan halka yaala in ay dhigo kuwa baartay ku amal faro wixii inoo sheego wajzaakumullahu khayr wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh شيخنا جزاك الله خيرا شيخ حسن عبد السلام ادي وما تسيهي الله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك وساره هذا كلمات كوبن وشكري ايضا وحان جعلها هنا كسو دويو شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده وأن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. الله نو أنفعه كلام رب العالمين. نعمة كست أو إنسان كإلهي أوسيي فهي من الله. نعمة إلهي نسيي أنه ما أنت قوبتها الشغل نمت نعمة الإيمان، نعمة الاجتماع، كلا إلهي درتيس أنه أكلني ارتبلنا نعمتها أنه يقين سنه إلهينا أنه كشكرنه سبحانه جل جلاله. أودنا يحولكني يقودنا منا معها، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إنه نقول نسيه إنه شغل ماضو لذكره سبحانه وتعالى وشكره. وأنا وحال لنا أبو ري أدونك بإله إنه كيني وجدد أبو ريتانك إنسانك إلهي وموس بهنين، إنسان وما بهنين، بني آدم وما بهنين، مخلوق إلهي وما بهنين. إن الله لغني عن العالمين. مخلوقات كانوا فربضن بو إلهي ليه وحكى لي إنسان كان له أبو ري يجني قصد إله إنه شيء إلا ليعبدوني. ومن أهم العبادات شكره. بركة نعمة إلهي نسيي بأن إلهي يكون مهدنا سبحانه وتعالى كلنك ذكر جيسانه كلني وجدد يسوع ماتنك لا يسوع مريو أما محاضراتك يا دروس يا مقارنة يسا خيرك هل كان لقى شيء يو إن لقى يابو فوائد علمية لقى فائدته وحكوين وإن بدن كوين موعوداتك يا بلنقادية إلهي غيبك إلا نو بلنقادي دتك إلهي درتي شوي ماذا إن إلهي ونحرسنيو إن حريسي كسو دقيسو إن سكينة وحلة إلى وإيمانك زيادة شيء كسو دقيسو إن تاب وحكوا ذوين
أي ملائكته أي حريرين يسو أنت أبو حكود وين إن الله رب العالمين وحسي سبحانه جل جلاله بركتاسين وكل جن وذني سنين إن شاء الله تعالى يعني هذا الكوبن بيقول أخونا عبد الرحمن وأنا إيدي وحيري هذا الكبد لسان وهو اللي وحيديني ما ليس وراقي روه بركة وحال يرينا المهضنا قرت إلهي بنو مهضنا قينا ثانيا وحن مهضنا قينا يعني أخواننا جزاهم الله خير سوق من قابيي اجتماع يقول أن كان أنصار السنة على رأسهم أخونا عبد الرزاق جيل المشهور بجرنال عبد الرزاق بان كما هذينا يو حديثة وحا مهدا وين له مرتقاتك أي نو هرقلي شيء دولة سومالي لاند أو ولي بأي آدي نوغو شرفين إني كسو وذا قيب قليل المدح ديدي نوغو وينا وزير الأوقاف والشؤون الدينية إيو رئيس البرلمان إيو عمدة البلد إيو أسماء فربضا أو كم إذا وحي أرنتاسي تسينيسا اهتمامك يددالك ولكن شيخ حسن وهل كان هكذا دواجي كل ما ذاك الدول الدين اللي سوء إيمانيو سواء مسابقات قرآن هالنقطة اجتماع دعوي عالمي عالم كلا جاي إيمانيو هالنقطة كل كان هذا اللي شو يمد إيه كل ما كانوا فربضا وحا يعني وحيالها لقوا بشارة استيان كفر حسن هاي ساكا أن أبغى فرحي كم إذا أنت هالكا يسوق تميد وحروران كرا بقول كيبا سجاشن يا سجال ودل يروي هذا وأرن يعني هدي أرنت واحد تسنيسة مستقبلك ودن كان وليه إن شاء الله هنا إله الرالي كان نقضي إن إلهي الرالي كان نقضي هدو إله الرالي كان نقضنا سعادة الدنيا والآخرة أي اللي بانية مشايخ الدمان وما هذا نقينا كل إن شاء الله تعالى مقعيده ذا لما ذا إلوبي حاضرين تسوى حاضري قبلها يويل الشباب كل وذا ما هذا نقينا إلهنا نقول أقبله اجتماعنا اجتماع مبارك الله نقدقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا الشيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي أدبو ما تسيهي جزاه الله خيرا وحاساس وكلام ما هاد نقنا جمو داننا ما هاد نقناه هوتيل كمنصور وأسجنا مارتي هول كايو برنامج كنا لهم قبصومه إنه فديي هوتيل كايو مامول كيسية شقالي سدمان وما تسيهين جزاهم الله خيرا هالمر علماء كودا قيب جليسة مؤتمر كا هدان ودا مقعابو الشيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي دكتور علي محمد صالح شيخ عبد الناصر حاج أحمد الشيخ الدكتور حسن شيخ علي ورسمة شيخ الدكتور سعيد فارح شيخ محمد شريف شيخ شريف طويل شيخ محمد عثمان علسو شيخ محمد حليكة شيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون شيخ ألمس يحيى يا كتجي شيخ محمد عمر درير يا كلا هذا اللي قبسنا ليش شيخ يا كلو كتجي يا شيخ سعيد راقي يا كلا شيخ حسين علي جيبوتي يا كلا جزاكم الله خير بارك الله فيكم دمان علماء سيقولون ما هتسيهين ميزانك حسناتك الله وصار جهوداس إن شاء الله تعالى كلمة قيبته هراء سياسيين تكور يسوي حنوجد بدون مدحضة سياسيين تو مير كوه الريو وهذا وحن شعل مركورنا ويارو دايركتر كا يو مؤسس كأساسي أنصار السنة تراست هذا دايركتر كا دايركتر في الصومالي محن نقول إسامركا دايركتر أقاسم مياه هيا أقاسمها الشيخ عبد الرزاق عبد الله آدم جنرال جير سودو جنرالي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا ليال إلهي با مهدسن مدن ونكسن متيستي إن لقو مهديو لرالي قشو. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله له ما في السماوات وما في والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى بان كمانان كن أوشير ومهد علينا يا الله. إنا أبورتي إنا خلقي آذنا نغا لي والدنيا نغا دوي وداير إيا دوفار إيا دمير إيا دنيا ودن نغا دوي وبنا آذن إنا نغا لي أو عقلي إيو محايا هيدا مسكح إيا قلبي إيو حواس إنو يالي إسلامنا نوغو داري ومسلمين نغا يالي. إلهي سبحانه وتعالى كمانان كن أوشير بان كمهد علينا يا انت كذب وجعلان لها إلهي إنا قماتي وكمهد عليو صدن دقيقي محايا هيدا كبضنبا محايا ليو متيستي وحاد عدي مالين مالمها كمذا نين صحابة كمذا هاين ويمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كويري نبي الله haddaad ogaan lahayd ama aad maqli lahayd ood la socon lahayd xalayto sidaan rabbigay u ammaanay cajab baad arki lahayd. wax weyn baan qabtay oo rabbigay baan aad u ammaanay. nebi maxamed sala allahu calayh waaalih wasalam wuxuu ugu jawaabay kelimad kooban oo macno badan huwan oo runtii aniga gaar ahaan qalbigayga ka hari weyday. oo markaan goob imaadaba ama aan meel kelmad ka jeedinayo waqtiga badanaa waxa iga qaataa ilaahay mahadii. wuxuu nebigu ku jawaabay salawaatullaahi wasalaamu calayhi: miyaadan garanaynin ama calimta miyaadan garanaynin saxaabiyow rabbigaa in la ammaano siduu u jecel yahay. ama calimta ana rabbaka yuxibu lmaxaamida. marka waa wax weyn oo aad iyo aad u weyno waxaad arkaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur'aanka wuxuu ku furfurtay mahad uu isku mahadinaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaa maa 5 suuradood oo qur'aanka ka mida ayuu ilaahay ku furfuranaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. 5 suuradood iyo ka badanna alle wuxuu ku soo gabagabaynayaa suuradaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. soo sardinteedu waqti bay iga qaadanaysaa. aayadaha kala barka uu qur'aanka dhex dhigayna tiro ma laha. sunnadii suubanihiina udgoonahii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam hadyigiisuna waxay ku tusaysaa sida ilaahay uu ugu mahad celin jiray in ay maxay ku astaysan tahay ilaahay baa jecel. intaasi inta haddaan uga gudbo walaalayaal, magacaygu waa cabdirasaaq cabdilaahi aadan. cabdirasaaq jiir baan ku magac dheerahay. generaalnimada ay culimmadu sheegeenna waa midaan isaga booteeyo ma aha, askarina ma ahayn, laakiin xoogaa baan jabhadeeyeyo ciidan badanna waan isku dubaritay. markaa halkaasaan wax yar maxay ahaydayay bidhaansaday. laakiin meeshan markaan hargeysa ka soo degayay wixii xiniye iyo darajo aan lahaa halkaasaan layga soo reebay. oo dee mujaahid muusa jooga, soo ma garanaysid. oo dee waatay soomaalidu tiri qoori xero kuma wada heshiiso. marka waxaan sitay meelahaasaan kaga soo tegay.
sida akhyaartii iyo culimmadii iga horreysay oo ay maxay ahayd ay kelimadoodu ku astaysnayd shukrinta iyo mahadnaqa ayuun baan aniguna dabagelayaa waxaan ku shukrinayaa culimmadan ku hormarayaa maxaa yeelay ilaahay baa hormariyey maxaa yeelay aayadda qur'aanka oo ka hadlaysa al-umaraa culimmada islaamku waxay yidhaahdaan yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum ulil amrigu waxay soo geliyaan alculamaa walumaraa weliba waxay kelmadda hordhigaan alculamaa sidaa daraaddeed intilaaqan min hadihi alaaya wa min hada almacna ayaan waxaan ku hormarayaa inaan culimmada kuwa dibadda inooga yimi iyo kuwa gudaha inagu martiqaaday baan kelimad shukri ah u gudbinayaa idinna in sha allahu tabaaraka wa tacaala ducada aan u daba dhigo waad ii aamiin dhahaysaan in sha allah culimmadu waa dhaayihii ummadda weeye culimmadu waa hoggaankii ummadda culimmadu waa horseedkii dadka culimmadu waa dadku ilaahay dadka ka doortay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun culimmadu waa qoladii nebigii iyo suubanihii iyo udgoonihii nebi moxamed sala allah alay wasalam inoo dhaxashay weeye alculamaau warathatu alambiyaa culimmada gudaha sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun iyo sheekh xasan cabdisalaan iyo sheekh maxamed cumar diriir iyo sheekh yaxya almis iyo sheekh xasan cali warsame iyo sheekh maxay ahaydayay culimmada oo dhan waayna martiqaadeen anigu bil ka hor baan halkan joogay oo aan diyaargaraynta iyo maxay ahayda abaabulka iyo agaasinka mu'tamarkan aan u imi raggaasi sheekh mustafabaha ugu horreeye aroortii salaad subax markuu soo tukado ayuu noo imanayay hoteelka ambassador baanu deganayn habeenkii cishaha markaanu tukannaa oo weliba markaa kadib aanu sii shirro ayuu naga tegayay waxaana ogahay sheekh mustafa allaha xifdiye howlahan oo kale horay in uusan xil isaga saarin oo u hormarin oo uusan durbaan u tumin oo uusan maxay ahayd albaabada u garaacin intaan ogahay oo aan xan ku helay sheekh mustafa oo albaab dowladeed tegaya tana ugu horreysay sheekh mustafa xaaji ismaaciil allah barakeeya wuxuu inoo raacay xafiiskii wasiirka waa inaga fadhiyaa sheekh khaliil waana waa gudageli doonaa marka wuxuu sheekh mustafa inoo qabtay ilaahay ka abaalmariyo annaga iyo idinkaba waxa uu inoo qabtay ilaahay baa og soo ma garanaysaan waa qodobkaayo waa culimmada maxay ahaydee gudaha culimmada dibadda inooga timi waxaan filayaa 5 qaaradood ee adduunka ayay inooga kala yimaadeen oo qaar America iyo Canada inooga yimaadeenoo sheekh Saciid Raage iyo sheekh Maxamuud Dulyadayn midna America ka yimi oo hadda waa nala jooga midna berito inoo imanaya waa Saciid Raage oo Canada ka soo socda Europe waxa inooga yimi sheekh Saciid Dr. sheekh Saciid Farax iyo Dr. Ali Muhammad Saleh midna Norway buu ka yimi midna wuxuu inooga yimi Ingiriiska iyo maxay ahaydee Britain annagu anoo guddi maxay ahaydee hogaaminayana waxaanu ka nimi Nairobi iyo Kenya iyo inankiisa waa xilliga ku hadlayay gruubkiisa qolana waxay ka timi Aasiya iyo Carabaha oo uu hogaamiye u ahaadee sheekheena qaariga ah oo uu qaarigu dhalay القاري ابن القاري شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي iyo sheekh nuur kabiir iyo sheekh jamaal iyo wiilku dhalay sheekh maxay ahaydayay allahu almusta'an sheekh cabdirashiid sheekh ali suufi ibrahim
raalli ha iga noqdaan waxaan hilmaamay reer laascaano intaan tirinaya raggii gudaha ya waxaa nin ugu liitaa la yidhi ninka bakooradiisa ka taga nin waxaa ugu liita sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo halkaa fadhiya iyo sheekh maxamuud xaliikana waxay inooga yimaadeen laascaana iyo xaggaa inooga yimaadeen raalli iga noqda siduu wadaadkii yaraa iga horreeyey uu u cudur daartay annagu afrikaani baan nahayo waa gebi dhacaynaayo wax badan waa inaga hoos baxayaan laakiin waxaanu ku fiicannahay xoogaa waa degannahay oo soomaaliya dadkeeda xoogaa xayraanka ku badan inaguma badna culimmada guud ahaan bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waa ku shukrinayaa waxaan kaloo ku shukrinayaa umarada oo qaybtii labaada atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum xukuumadda somalilan dowladda somalilan dowladda barakaysan waa ku shukrinayaa bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala oo uu madaxweyne u yahay ugu horreyn mujaahid muusa allaha barakeeyo tamaam waxaan si gaar ah maxay ahaydayay oo aanan kala har lahayn hortiina ooga mahad celinayaa wasiirka sheekh khaliil cabdilaahi axmed oo dee waa sheekhayagii waana wasiirkayagii waana wadaadkayagii goob kasto oo loogu yeerana waan ku arkay cashadii dhaweedoonu nimi xafladii qur'aanka lagu khatimayey dariiqaanoo taagan oo albaabka laga gelayo hoolka ayuu gaariga la yimi halkaasuu istaajiyey markuu soo degay baan idhi markii la ii sheegay waa wasiirkii waxaan ku idhi jaalle wasiir ma lagu salaami karaa ayar intuu naxay buu yidhi oo maxaa la ii salaami waayey aniguna waxaan islaa dee wasiiradu dhaqamo gaar ay leeyihiin oo kuwa yagii baan halkaa garanayay waxay ku siigan yihiin in loo soo guurguurto laakiin wasiir cimaamad halkaa isaga saaran tahay oo ayar iska lafyoonaya oo nin walba gacanta gelinaya jaalle wasiir shakara allahu lak allah ku barakeeyo sidoo kale brotocolka haddaanu khaladno dee la socda annagu idinma naqaan sidaa maxay ahayd xasaasiyaddu u taagan tahay lama socodno waxaan ku xijinayaa maayarka dhallinyarada ee hargeysa oo sida loo doortay nin la mida aana loo dooran oo dee odaygii wacnaana uu dhalay cabdilkariim axmed mooge maayar soo dhowow waana kugu shukrinaynaa inaad nagu martiqaado magaaladaadii dadkaagii dowladdaadii maxay ahayd waxaad darajo lahaydna aad nagu soo dhowaysay sidoo kale dee ninkii ragga ahaayoo mujaahidka aanan ka dhicin cabdirasaaq khaliif axmed guddoomiyaha baarlamaanka waa ku nuuxnuucsan lahayo dee xisaab kalea soo baxaysa halkaasaan uga gudbaya odayaasha dhaqanku waa salaaman yihiin waddankan waxa uu ku dhisan yahay amnigiisa iyo istiqraarkiisa iyo dowladnimadiisuba dee waa odayaasha weeye waa salaadiinta waa maxay ahayde boqorada waa isimada waa maxay ahayde cuqaasha ilaahay ha barakeeyo ma kala qaadayo waxaanse si gaara u magacaabayaa garaad kulmiye wiilwaal oo jigjiga inooga yimi oo yidhi waa inaan golaha maxay ahaydayay qumaati u weynaynaa yaanan hilmaamin ganacsatada somalilan guud ahaan waana sharfeen oo bishii hore intaan joogay waxay maxay ahaydayay naga dherjiyeen cunto iyo cabitaan iyo salaan wanaagsan iyo maxay ahayday sharaf iyo maamuusba waxaan si gaara u magacaabayaa walaalkay cabdikariin maxamed ciid oo shirkadda maxay ahayd telesom oday uu hogaamiye ah waxa uu ina siiyey malaha tobaneeyo land cruiser oo aan maanta maxay hargeysa isku barannay hargeysa ismaanan baran lahayn wadooyinkeeda iyo xaafadaheeda iyo maxay ahaydayay
wadooyinkeedaba haddaanan laankuruusarada dee yaabka leh oo wada brooga ah oo maxay ahaydayay inagu taageertay shirkadu cabdikariin jazaaka allahu khayran waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa oo mahad u celinayaa labada hotel ee mansoorka aanu hadda joogno iyo ambassador oo aanu maxay ahayday bishii hore iyo maantana degannahay labada maamul ee labada hotelba ilaahay subxaanahu wa tacaala cimri dheer iyo caafimaad iyo caqiido wanaagsan allah ku dilo allah siiyo xaajiga hotelkan mansoor allah barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad xooggan baan ilaahay ooga baryaynaa tamaam shacabka somaliland waa shacab qiimo gaara inagu leh waa shacab qadarintiisa gaarka aanu u hayno waa shacab maxay ahayd aanu jecellahay waa shacabkayagii waa dadkayagii dalkayagii baanu nimi waa nagu soo dhoweeyeen dadkayagii baanu ka codsannay inaanu la hadallo waa inoo oggolaadeen waa ku mahad celinaynaa qadarkiinana iloobi mayno sidoo kale brotocoolkii baan yaro khalday walaala igu baraarujiyey xildhibaanada intay la eg yihiinba waa ku shukrinayaa bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala igana raalli ahaada de nin jamaahiirtan oo weliba jamaahiirtii la yaqiinaya soo hor istaagay wax badan baa ka yara baxsanaya marka raalli noqda culumaad leedihiin akhyaar baa leedihiin odayaal baa leedihiin si gaara xaajigaan u salaamaya maxay ahaydaye barkhad si gaara ayaan u salaamaya waxaan uga mahad celinayaa reer hargeysa doorashadii xoogga lahayd ay walaalo ku doorteen waxayna ku tusaysaa shacabkani shacbun abiyun cariiq inuu yahay oo aan maxay ahaydayay aan dadka la mid ahayn ilaahay ha idin barakeeyo imaanshaha hargeysa aan nimi iskama aanan imane la socda waxaan daba joogaa hadal uu sheekh xasan cabdisalaan halka ka yidhi oo yidhi annagu cidna maanan martiqaadin cidna umaanan tegin cidna umaanan yeeran waana loo yimi bakiltinima halkaa ayna dhigtay hawshu sidaa ma aha iskama aanan imanay hadda la socda waxayna keenay culummada somaliland waa noo yimaadeen oo afrikay noogu yimaadeen oo nairobi bay noogu yimaadeen oo waa noo soo noqnoqdeen oo sheekh mustafa yimi malaha 10 jeer ku dhowaad ama 5 jeer oo sheekh dirir baa yimi oo sheekh maxay ahaydayay xasan cali warsame iyo bal cali warsame sheekhi weynaa ee dacwada ayaa noo yimi 2-3 jeer iskama aanan markii dambe aanu xishoonayo markay culimmadu nagu soo noqnoqdeen aanu maalintii dambe war rag waa kii abaal gude annana waa idin imanaynaa iyaga ayna keenay iskama aanan imane sidaa la socda ansaaru sunna dee nin isbaanshay waa ri'is nuugtay ansaaru sunna haddaad rabtaan waa ninkaa weeye class 1 baan ooga bilaabay asagoo gaban yaraa oo intaa la eg maantana waa urduuga xataa nagu wacdiyey soo ma garanaysaan waa nin looyara waa nin sheekha waa nin maxay ahaydaye raga oo xiniyihiisa fuulaya waa nin reer hargeysa meel iska saaray gunaanad waxaanu idinla joognaa waa wiig iyo 2 bini aadam baanu nahay oo haddaad noqoonsataan si hoose wax noogu sheega sidiinii ha soo istaagin oo idaacadaho waa ninkii reer hebel ahaayo keer iyo kaas ahaayo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala abshirta hayna waafajiyo culimmadii baa inoo joogta xafladdani waa xaflad furitaan waanu kala dhargaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaanu idiin sidnaanaa sidii cawka uu yidhi iyo hobolladii waa beri ay oran jirtay maxay ahaydayay caawaad naga helaysaan maalmahan baad naga helaysaan in sha allah kowdheh magacana ka garo wuxuu yidhi cawke magacaba ka garo markuu wax xayaysiin jiray buu oran jiray magacaba ka garo dee waa ansaaru sunna weeye
وهلذي دينتا وهلذي النبي صلى الله عليه وسلم ووداددي ويه ملك لك ما ينمن مدارستي مساجدي هي دينتي هي كتابك هي سنتي بكي مادين عده وحكو درسدين او اذن هور يمنيسنا وعلمدي ويه سياسيين منهن ان maxay ahayda ay mucaarad manihin maxay ahayda ay wax kale ma doonayno noogama dambeeyo duulaanna manihin rag idinka idin kamid ah meelaha ka wax ka sheegi doono war nabadoonaanu nahay nabadoono taa wax noogu qaybiya assalaamu calaykum jazakallahu khayran jiraarka aad u maadsan yahay inkastoo waqti badan uu qaatay wana ii xoog sheegtayo macallinnimo iyo generaalnimo iyo adeernimo iyo kaarar badan buu xoqday laakiin dadka ka dambeeya ka yeeli maayo waqtigaa la ilaaliyo insha allahu tacaala haddana waxaan jeclahay saaxiibkay xamse cumar kujoog inaan ku soo dhoweeyo soo barnaamijka inoogu sii wado insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقور قابن هذا الكيد قابن mahadnaqiina maanta oo dhan baa la waday ku noqon maayo waxaan jecelahay inaan runtii intii loo mahad celiyay uu mahad celiyo madashu way koobnaan doontaa wixii hadda ka dambeeya ereyaduna way noo koobnaan doonaan in badan inoomay hadhin waxaan se jeclaystay marka laga yimaado ereygii soo dhoweynta sheekh xasan iyo ereygii soo dhoweynta ahaa sheekh cabdirasaaq iyo sheekhii aynu wada sugaynay sheekh cabdirashiid oo ereygiisii ina yidhi sida saxda ah halkan aynu joogno cid baynu marti u nahay cid baa loo yimi ciddaas ayay tahay inay ugu horreyso oo dadka o dhan ay soo dhoweyso waxa markaa aan jeclaystay inuu ugu horeeyo oo ereygiisa uu yidhaahdo oo culimada shanta qaaradood isaga timi uu soo dhoweeyo madashanina madal sanad walba dhacday inoo noqon doontaa sanadaha dambena ciidanka ilaahay ku talagalkiisa uu sii yeesho maayarka caasimadda saaxiibkay cabdikariin axmed mooge isagaan soo dhoweynayaa isagaan rabaa inuu ereygiisa ina yidhaahdo soo dhowo maayar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن إلهي هرجي سدا شوكتان نودي نوجي علي الحمد لله إن إلهي أنت نهلكن شوكتا عفماد نوك يعني الحمد لله إن علماءنا قيمها بدن شرفت بدن يسقي مشان تقارض الدونك أين لا شوغان الحمد لله إن كل ديمات كصدحات أنصار السنة وهرجيسة كدعيو الحمد لله إن ضد بدن وشرف له ومدة الصومالي دور ندحي شرف كله أي هل كان يلد شوغان وأي كسوق قال إن كل ديمات كان خير كبدن يهرجيسنا خير كي بركة الله وحنا دلها الله يعني ومثل أي شعب كهرجيسة waxaan idin soo dhaweynayaa anigoo matalaya shacabka Hargeysa ugu horreynna waxaan doonayaa inaan anigoo magaca Hargeysa ku hadlaya oo duqi caasimadda ah inaan culimadayada aan karaamada u hayo sharafta u hayo codka iyo magaca Hargeysa aan ku soo dhaweeyo aan idhaahdo ku soo dhawaada dalkiina hooyo xaqiiq weeye hadal siyaasadeed maaha culimadu intay Soomaali degto dhan bay culimo yihiin magaalo kasta wadankay doontaha ku taale ayaa magaaladoodiya dal kasta oo Soomaali degto ayaa dalkoodiya calan kasta oo Soomaali leedahay ayaa calankoodiya marka culimadu waxay ku soo dhawaanayaan magaaladoodii waxay ku soo dhawaanayaan dalkoodii waxay ku soo dhawaanayaan calankoodii waxaan sidoo kale magaca Hargeysa ugu mahadnaqayaa culimada reer Hargeysa ama reer Somaliland ee doorka ka qaatay in kulanka khayrka badani uu Hargeysa ka qabsoomo waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa wasiirkayga diinta iyo awqaafta
inuu isaguna ogolaanshihii soo dhoweyntii intiiba qaatay sheekh khaliil ilaahay khayr siiyo isagana waan u ducaynaya waa sidii uu yidhi xidhiidhiyoya hargeysa akuna matata wax dhibaati ma jiraan hargeysa beledkuna waa beledul salaam waa magaalo nabdeed waa magaalo khayr badan culimadana daal lugaysaan magaalada dhexdeeda jacayl iyo dhunkasho iyo in naqasku idinku yara dhego dee jacaylka laydin tusaya mooyaane wax dhibaato ama arkaysaan waddanka nabaddiisana waa saa u sheegteene khaliille khamiiskiisa iyo cimaamadiisu iskaga dhex maraa anigana imika askari lama socoto anuu maayirkii magaalada ah xaqiiqatana gaadhigayga inaa iska wato imika imi hudhaalka cidi keentay iyo daruuri keentay ma jiro ilaahay waxaan ugu xamdi naqaynaa in ilaahay magaalada nabdoo nagu abuuray na dejiyey nagu barakeeyey nagu nimceeyey madaxna weliba nooga dhigay alxamdulilah marka culimo soo dhowaada ilaahayna waxaan ka baryayaa kulamadan sidan oo kale khayrka badan inaad noo soo celcelisaan noo timaadaan waa runoo weli xoogaa laakiin kulamada dambe annagoo yabyabannayoo dowladda hoose wax badan xil qaadi karayso inay insha allah noo soo noqotaan ilaahayna waxaan ka baryayaa inaydaan intaanu muddo xileedkayga joogno insha allah in ilaahay noo suuro geliyo bal ugu yaraan kulamo badan oo khayr laba halkan ka dhaco oo kulanka tabliiqa sababa noo dhaco oo waa la wada tagaa khayr badan baa halkaa maarta idinkana insha allahu tacaala inaad sanad walba noo soo noqotaan oo magaaladiina timaadaan baan ilaahay ka baryayaa idinkana caafimaad baan ilaahay idin weydiinaya hablaha iyagaa quruxda badan ee soo camiray ee qaybtoodii buuxiyey kulankana allaha barakeeyo hablaha iyagii waa qurux badan tihiin waxaa ku qurux badan tihiin jilbaabkaa ilaahay idin faray inaad jirkiina ku asturtaan marka idinkana aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waxaan ragga idinka soo socday berigii dhow aadna waa dumarku waa ii doorteen hoolkana waa soo camirteen insha allah ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay subxaana wa tacaala quruxdiina alla idiinsii siyaadiyo somaliland allah inoo barakeeyo magaalada hargeysa ilaahay nabaddeeda inoo wanaajiyo ha inoo sii adkeeyo khayr badan iyo horumar allah inagu siiyo culimadeennana intay nala joogaan allah ku ilaasho iyagoo faraxsan bay inoo yimaadeen insha allah iyagoo faraxsan ayay insha allah inaga noqon doonaan culimada reer kenya ee iyaguna runtii iyagoo nairobi jooga haddana dadaal badan ku bixinayeen kulankan halkan ka dhaco si gaara ayaan iyagana ugu mahadnaqayaa garaadada aad iyo aad baan iyagana usoo dhaweynayaa garaadka jigjiga inooga yimi iyo garaadka laascaanood inooga yimi labadaba waddankooda iyo magaaladooda kusoo dhawaada ixtiraamkii dhaqankay sitaan iyagana si gaara ayaan usoo dhaweynayaa walaalkii cabdikariin aad baan ugu mahadnaqayaa una asturay waxay ka dhigan tahay baabuurta iyo soo dhaweynta uu bixiyey reerkiisu ku matalaya waa odageedii waa ganacsadaheedii marka isagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxaan un kaga baxayaa reer hargeysow marti weyn baa joogta magaalada martina si weyn baa loo soo dhaweeyaa soo dhaweyntu waxa weeye insha allah waan arki doontaan culimmadu galabta oo kale marka waa xilligii shaqada caawa waan ogahay meel la kala fadhiistay in la waayi doono waa laydin jecel yahay waa laydin imanayaa marka martidu nin soo dhaweeye iyo nin kulamada soo camiraba ayaan loo kala maqnaan maalmaha martida linoo yahay gobonimadii hargeysa lagu yaqaanay waa inaynu muujinaa insha allah khayr baan idin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raallinaha layga ahaado dee shaqadii qaranka ii taalla waan idinka baxayaa waanse jecelahay intuusa kulanku socdo waa idinku soo noqonaya xilliyada aanan shaqada qaranka hayn insha allahu tacaala جزاه الله خيرا مايركا هذه هذا يوم هتسيهي برنامج كوينوسي سعون دونا إن شاء الله تعالى كلمة لها علماء لما كلمة دود أيام كسوق بجبيننا إن شاء الله تعالى
kelmadaha culimada laba kelmadood ayaan kusoo gabagabayn doonaa insha allahu tacaala kadibna salaadiintii iyo garaadadan u gudbi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo siyaasiyiinta dhammaan insha allahu tacaala hadda waxaan jeclay inaan kusoo dhoweeyo sheekh maxamed cali geedi gudoomiyaha mu'asasada qarni afriqiya kelmadiisa inuu ina yidhaahdo insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ريال علماء ينوتمي ميل والبين وغيمي وسود ويننا سود ولا ريال waxaan ka horaysiinaya aan jecelahay inaan ka horaysiiyo inaynu isxasuusino mar walba nicmada ilaahayna siiyey ee aanaynu garanayn badankeenu aanaynu garanayn inaynu mar walba isxasuusino aan jecelahay inaan xasuusiyo walaalayaal ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yidhi wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahayna siiyey ma tirin karno nicmada weyn ee ilaahayna siiyey waa iimaanka wax ka weyn oo ilaahay bixiyo oo ka qiimo badana ma jiro taa waynu nagu banaysta ilaahay baa ku mahadsan wuxuu kaloo ina siiyey risiqa uu bixiyo kuwa ugu fiican buu ina siiyey oo ari iyo geel iyo lo iyo kalluun waa risiqa ugu badan ee uu ina siiyey uu ku mahadsan yahay ogoobey adduunka meesha addoonto tag qudheelka addoonto tag laba wuxuun baa ugu qaalisan waxaad cunto waa hilib iyo kalluun meelo badan baa lagaa iibinayn bariiskaba hilibkii iyo kalluunkii innagaa ugu fara badan oo haysana ma tahay saas mise dhaweeye xoolaha innaga haysana xataa badankeenu kalluunka maba cunaba ari iyo geel iyo lo iyo kalluun ilaahay inagu ina siiyey ilaahay baa ku mahadsan ilaahay waxayna siiyey waddanka ugu fiican buu ina siiyey hawadaa toobka aad gashantay ama shaarka aad gashantay baa laga yaabaa gu'iyo jilaalba inaad gashanaato ummaduhuna waxay kala beddelaan mid guya mid jiilaala ayay kala beddelaan badankoodu waa nicmo weyn ninkii garta nicmo weyn weeye walaalayaal waxaa ilaahayna siiyey ilaahay wuxuu mudan yahay inaynu ugu mahadnaqno waxaynu kaloo haysanaa maanta amniga caalamka ugu fiican caalamka ayaynu haysanaa dadka inoo yimaadaa markay suuqa dhex marayaan ee arkaan dahabkii iyo dollarkii halkaa iska yaalla oo aan cidi ilaalinayn oo aan askari la joogin oo aan qafas ku jirin way la yaabaan waa ilaahay mahaddi weeye walaalayaal waxaasoo dhan in ilaahay ugu mahadnaqlo ayuu ilaahay mudan yihi wa qaliilun min cibaadiya shakuur ilahay baa subxana wa tacaala yidhi addoonteeda in yarbaa ku mahadisa aynu isxasuusinataa ma haysanaa nicmadaa mise ma haysano war ma haysanaa quula alxamdu lilah taas waa mid arrinta kale culimada waynu mahadnaqaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu
imigiin iyo kii waalintiinba dhaafo culimada oo dhan culimada inooga tamkiinaya ee muctamarkaa inoo keentay aad bay u mahadsan yihin intaynu garan weynay bay maanta ina tuseen muctamar oo kale inaynu kanoo kala qabsano innagu inkastoo muctamarkii tabliiqu uu jiraa sanad walba haddana muctamarkan oo kale weli baynu samaysan innagu laakiin maanta iyagaa ina tusay ilaahay dembigooda iyo kiiwaantoodba ha dhaafo aamiin dhaha waxaynu samayn doonaa insha allah oo aan soo jeedinayaa iminka layna tusiye ma samaysanaa inaguna sanad walba war ma samaysanaa oo culimada ma u yeedhnaa caalamka ictilaafna waynu doonaynaa hadda laba isma gasho ictiraafna waan doonayaa albaabadana waan xidhanayaa ilaahayna barya maayo miya iskashaa intaas miya iskashaa muctamarka waxaynu doonaynaa inaynu inagu samayno sanad walba saama iska ogaanaa maalintaa hadda haddii ilaahay ka dhigo waynu yaro gudagelaynaa baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayra جزاه الله خيرا آدو مهتسن هاي الشيخ محمد علي جيدي كلمتها علماء وحي نصو حرايا إن شاء الله تعالى الشيخ ألمس يحيى سودو شيخنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكيوا جب ويان intii la sheegay baan ku waafaqsanahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa halkaa wixii wacdiyo waana iyo diin la sheegayo dadkii ku camal fala ee weeleeya ee u bedela camal ilaahay inuu inaga dhigo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala hadiyad la isa siiyo waxa ugu qiimo badan ciddii wanaag iyo kelmad wanaagsan ku tiraahda marka jazaahum allahu khayran culamadii safarka dheer iyo meelo fog ka yimidna waxaan leeyahay tibtum وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بان لا يحي دولة سومالي لاند وأن آدي آدو مشغول صنايو قفكي واجهي لهد لي هوشن ديران ديريني عنها وحن جعلها من لا يشكر الناس لا يشكر الله إن أمها العليو وأن إلى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وأنا شرفتين هوشي واد نور دمرسين سبب وناكسن باند نور قبتين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم قضبك لبادي كحيقا وحويي علماء وحيابها وقوين فرحات قلينيا إماتن كاينو يمادين ساقو روحو بيدوكنا وقصوا قيب قشين وحويان علميقا يدين تاي وعيقا أي وضان إنينو كعنت مذيقين إنو قاضنو يا يحيى خذ الكتاب بقوة اللي يردينو إن النقضان اللي يرو قلبي قوذنا إيمان بوحيي caqligoodana cilmi buuxiyey xubnahooda iyo jawaarixdoodana cibaadada u fudfudud dacwadda iyo diinta inay qaadaan ay meel fog inay kala dhacaana u diyaara xamaasad joogto ah iyo horjoogid diyaar ahna had iyo jeer inay ahaadaan culamadooduna inay u ahaadaan dadkii xakamayn lahaa ee qaban lahaa xamaasadda inay qabtaan markaa shirarkan oo kale waxyaabaha aadka qiimaha u leh waxa weeye in labadaa la isku qabto xamaasatu dhalinyarada iyo xikmatu shuyuukh in la isla helo oo markaa ay noqoto itijaah Somaliland calankeeda waxa ku yaala kelmad laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah afdalu kalimatin qultuha ana wan nabiyuna min qabli ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يري من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كلمة التوحيد وكلمة قالئة كلمة دا مركا وحي أباهم تهي إن لقى حقيقي أباهم تهي ونحجو يوم القيامة إلهي إنكم نقول أما هالنقطة مدحذين هالنقطة صلاتين تينا هالنقطة تجار تينا هالنقطة علماء ذينا بلن يا عهدي هانسلا قالنا إنه كلمة دا حقيقي
وإنه كلمة داس إنا يقشوا مقتضيات كده إنا مال والبين يقشوا برلمان كنا ويحبناه إنا لفظ يعني إنا كلمة التوحيد إنا يقشوا وشرع الدجنت أو نقطة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إنا نقطة عهد يبلم كتاب الله نواذ قد عرتين إله إذا لقبته كلمة التوحيد إنا يقشوا ورماس كام صح صاحب كاري بضبط يسارنا يرسي يرفرس وأنا يرفرس أو جنرال هاي كور جنرال لماذا كور جزاك الله خير كلمة ده وحرمنا إنه نقعمت مذيقنا نقاعدنا وإنه هالكا قعدت تقاعدت وحبرشدين يا منهج كنا وحبرشدين إنه نقلينه إنه نقلينه فلسفة نروشين إنه كنا نهاي إنه نقلينه كذبنا فاتقوا الله ما استطعتم بين تعالى مركح إلهي مركن يوم القيامة هو استاجنوه والكلمة دي أتكلم شعار كاد ميل والبعض صدام محات كيشين ما كينا لا يراهضه إن أنا راهن إلهه تاجت تمرتوا أنت هسه وحبا ما نهكرن هل كاسة تاجت تمرنا دكتي مركا أنت أنا هسكو جانا بإذن الله تبارك وتعالى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا. شيخ حقاوي وابيوان بقي لكن وبيسو قايمين جزاه الله خير. هذا وحنو قد بينا إن شاء الله تعالى كلمة دي صلادينتا وقت قاد عريري وأدرتين لو أيان سين دونا إن شاء الله تعالى أيضا وحن قعد سنة إن آد نوقصو كوبان كلمة كوباد قرات كلمية قرات محمد وشكشيغا ينوغيمي سودو قرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى يدي معي وحنسو عرين عن قابيو مضى علماء ذويه وحنادي آدي الله وقم هدينا يا وفرحت يرين أمانتين ومؤتمر كان ينوقف صومه عدي كشقيسي أنصار السنة يدولد الصومالي لان dadweynaha reer Hargeysana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro keligay meehi haddii saddex meelood loo dhigo hoolka meel inaanu jigjiga ka nimid baan u malaynayaa rag badan baa ila socda dad badanna way soo socdaan oo ogahay waxaan u soo soconnay inuu nimid culimadeena qaaliga ah إلهي هبركيو ها عزيو إن أنو كلمات كوغا قادنو إلهي نوحان كبرينا كلمات كاين أوران دونان إنو إلهي كوي ويلي نقدقو آدي آدبان قمهد علينا يا علماء جزاكم الله خير إلهي عمر ديري عافمات هايدين سيو وحن ليها ولا ليال تدوينها الريهر قيسا دولة جمهورية الصومالي لان آدي آدبا وغفر حسان هاي مرتقلين تاي قروح ذا هذه النوضة السميسان جيجا بقولي اللحظة كيلومتر بهرجيسة وشرتا حالي جوردن بان كسوة بحني حالي هرجيسان وشوقني مؤتمر كا هدان لقبان لهين دمانا نمادنين مركا هدان مرتقلية دي يسودوينتي دي كلا قيب قادن دي إذيكو أو هدا لما مقالو أو ولا لا إنها يسكد ويسكد دكسن مركا وايديكم هاد علينا يسودوينتي هاد علماء دي إنه سميسان إذيك أنا ميزانك حسناتك الله يدين سارة جزاكم الله خيرا هذا البدن مجرو أنك ومر وحنون بدينا واحد بدن دقيسنو وواحد بدن لنقنو وندلك لتقنو إلهي إذا مكينا واحد كبرينا مال صدنو كلا أيضا إنا نشجعيو ديجانكي سومالي ذا أدمرنا وقتي مادان تانا إلهي بان كبرينا جنرال كنو شوقة يدنا ونعصر الله إن شاء الله دو إلهي هذا waxaan leeyahay uun mahadnaq weeye culimada waan u mahad celinaynaa dawladdeena Soomaaliland iyo jamhuuriyadda oo inagala fadhiya Sheekh Khaliil iyo afayeenba xaqiiqi leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif iyo xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadweynaha reer Hargeysa aad bay u mahadsan yihiin salaadiintu aad bay u mahadsan yihiin waxaan leenahay uun annagu in badan inaan wax dhageysano oo la noqonaano nimid
waa idin mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa dalka inuu nabad inooga dhigo inuu dowladdeena Somaliland iyo shacabkeygaba ilaahay noo barakeeyo culimadeenna inuu ilaahay noo barakeeyo annaguna dalkan ka nimid hawlo yar baa ka jira inuu ilaahay nabadgeliyo nabad ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay garaadka jazaa allahu khayran haddana waxaa kelmadda xigta waxaan kusoo dhaweynayaa insha allahu tacaala garaad jaamac garaad ismaaciil soo dhowow garaad بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا علماءنا شرفت بضن كرامة بضن أينو جعل هاي هل كان ما أنت متبر كان صدحات أينو كغفرينه قدوميها قراها وكيلة ما يركي مقالة وسوى حوي هل كان كبح وشغية شيء حلبان ذا wasiirka diinta iyo waqaafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil haweenkeena sharafta badan cuqaasha ningarboodka dhalinyarada aqoon-yahanada ganacsatada oo ugu horeeyo Cabdikariin Maxamed iyo Talasom oo runtii wax weyn halkan ka qabatay salaadiinta oo aan ugu dambeysay oo ahayd nin walba meesha ugu xigta ayuu waxa weeye ugu hor xasuustaa ee halka fadhida oo boqor Axmed iyo garaad kulmiye iyo Suldaan Naasir iyo kamid yihiin dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa iyo bahda saxaafadda salaanta islaamka mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaan halkan mahad gaar ah ugu soo jeedinayaa Arzaara Sunna Trust oo uu hogaaminayo Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan Generaal Jiir waxaa la yaabaa jannaanimada uu ka hadlay waxa weeye waa sida uu sheegay ee waxa weeye xagga iyo East Africa ayuu ku joogaa iyo waxa weeye waftiga ballaaran culimada ee la socday anigoo ku hadlaya garaadku wuxuu ku hadlay afkii kilalka shanaad ama Ethiopia anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland wakiilna kaga ah dhammaan dhaqanka iyo waxgaradka iyo guurtida iyo cid kasta oo waxa weeye jamhuuriyadda ku nool hadday bari tahay ilaa galbeed waxaan idin leenahay soo dhawaada culumooy ilaahay baa idin jecel dadkiina idin jecel waxa weeye wax weyn baad noo haysaan qalbiga waxa weeye iyo qulubtaan idinku haynaa waxaan kaloo halkan maanta aan jecelahay in ilada cusub oo gudoomiyuhu hogaaminayo Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo xildhibaanada inta joogtay inta maqanba maadaama ay xil cusub ilaa maayarka iyo xildhibaanadii golayaasha deegaanku ay hadda waxa weeye muddo bula joogaan in loo duceeyo dalkana loo duceeyo culimada soo dhawaadaan leenahay waad ogtiin diinta islaamku waxa weeye waa diinta koowaad waa waxa ilaahay nagu barakeeyay waa waxa weeye aynu ku liibaanay waa waxa weeye aynu ku dhaqanno waa waxa weeye aynu ku dhimanayno waa waxa weeye aynu isku maqallo weeye marka waxaan leenahay culimada soo dhawaada ilaahay ha idin barakeeyo meesha ka timaadeena marka mutabarku idin dhamaado idinkoo nabad qaba ilaahay idinku nabad celiyo nagu soo noqdaan idin leenahay garaadku jigjigu idinku macsuumay anna la ascaanood baa idinku macsuumaya intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay garaadka iyo dhammaan intii ka horeysay hadashay jazaahumullahu khayran aniga barnaamijka marka daadihintaydu intaasay ku eg tahay wixii hadda ka dambeeya waxaan ku wareejinayaa walaalkay Xamza Cumar Kujoog marka wada socod wanaagsan insha Allah taala jazakumullahu khayran soo dhow aad iyo aad buu mahadsan yahay looyarka Cabdiraxmaan Mursal sheekh iyo looyar wada socdo weeyaan sidii hore loo tilmaamay mahadnaqu runtii wuxuu daaranaa dhammaan inta dabadda maanta runtii yidhaahdo barakaysan oo maalmihii qiimaha badnaayay baynu ku jirnaa waxaan filayaana runtii dadka badankoodu waa sooman yahay
ducaduna waxaan filayaa intaasoo isu timi oo ilaahay subxaana wa tacaala isxasuusinaysa oo intooda badan ay sooman tahay waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala inoo aqbalo duco kastoo maanta halkan laga duceeyo allah inoo aqbalo allah inoo aqbalo aniga qaybteedina way kooban tahay looyarkana waan ka digtaytarsanahay oo cunahaan qaban doonaa qolyaha marka aan u yeedhayo oo daqiiqad iyo 2 iyo 3 ilaa 5 baan u gaadhsiin doonaa haddaan u badiyo waxaan rabaa madasha culimada ay noo bilowday bahdii dhaqankuna way hadleen aqoon-yahankii ganacsatada iyo siyaasiyiinta saddexdaa qolee dambaan anigu lahaa waana inoo soo koobayaa waxaan halkan uga yeedhayaa bahda aqoonta gudoomiye professor mubaarak aar gudoomiyaha jaamacadda beder oo mateli doona bahda aqoon-yahanka ah ereygiisaan siin doonaa ereyga ganacsatada ay noogu xigi doonaa kadibna siyaasiyiinta ayaan erey siin doonaa soo dhawow macallin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وجهرين إلهي بنو ما هنقيا أنت كبعدنا وحنو ما هنقيا علماء قيمها بدن ما أنت إن لا شوكتا أرنتي عن سلايا هاي وكل كي وجو قيمها بدنا هرجيسا كدعة علماء وحلا صور هذا آد بدن رنتي محايدكم ما هنقنا culimada dibadda inooga timi iyo kuwa gudaha inooga yimiba waxa runtii mowduucu ku saabsan yahay diinu nasiixa waxaan oran karaa waa kelmad leeta ugu weyn ee lagu cabiri karo isbeddelka qofka qofku inta badan wuxuu ku saabsan yahay noloshiisa oo dhan noloshaada oo dhan waxa bedeli karta waa kelmad saxaabada waxa bedelay kelmadii laa ilaaha illa muxammad rasuulullah kelmaddaasi dhinac kasta oo nolosheena ka mid way galaysaa waxaan runtii aan xasuustaa nin macallina gala soo galay markuu soo galay casharkii isagoo sharxaaya ayaa arday halka dama fadhiyaa caagad biyo ku jiraan ku soo tuuray macallinkii markuu saa ugu soo tuuray ayuu macallinkii caagadii biyaha intuu qabsaday ayuu biyaha qaybba ku harsaday ayuu cabbay markaa macallinku samirdu wax ku qoraaya markaasuu macallinkii yidhi ilaahay kawtharka ha kaa waraabiyo sida biyaha maanta ii siisay ardaydii way yaabeen macallinkii xisadii buu sii watay markuu dhammeeyey ayuu yidhi dhegaysta arday maanta ninka caagadda igu soo tuuray aniga igumuu soo tuuray waalidkii iyo aabbihii buu ku soo tuuray qofka waalidkii ku tuuraynaa noloshiisa horumar ma samaynaayo احترامنا ما هلايو لكن سو waxaan idin sheegayaa anigu waxaan idin sheegayaa inaan cafiyay ardaygaas ilaahayna inuu dambi dhaafaan ka rajeenayaa idinkuna arday ima sheegi kartaan ardaygaas ku yahay galaaskii baa ardaydii dareereen ardaygii keligii buu galaaska ku soo haray uu soo kacay isagoo aad u murgeysan macallinkii raali gelinay ardaygii sidii buu macallinku raali geliyay noloshii way socotay muddo ka bacdi ardaygu wuxuu noqday madax sare macallinkiisii xajku ku casumaa oo isagu lacagta ka bixiya oo geeya saaxiib lilaahiyana way noqdeen waxaan tilmaamayaa kelmadda nasiixada macallinku yiraahdo saamaynta ku samayn karto qofka bani aadamka kelmadda nasiixa culimadu yiraahdana waa la mid taasoo kaliya ma aha tujaar badan baa maanteena la joogta waxa aad runtii looga waramaa leen la yiraahdo cali qaxtaani oo taajira ayagu xiraanigu dubay jooga ayaa diyaarad baan soo fuulay diyaaradda dhinacayga waxay la soo fadhiistay nin taajiro aad u weyn ana markaasaan ganacsiga bilaabay buu yiri ninkii taajirka baa igu yiri magaca hebel baana maxaad ka shaqaysay tijaarada wuxuu ku yiri tijaarada ii macnee tijaaradu waa iib yadaka iyo qof inaad wax ka iibiso isla ka iibsado ma haba yiri tijaara kelmadda la yiraahdo 5 kelmadood bay ka koobantay ta iyo jiim iyo alif iyo ra iyo ha mid kasta falsafad gaar ah wadataa koob wuxuu yiri taadu waxay wadataa tawfiiq min Allah ilaahay tijaarada waa inuu ku waafajiyaa waafajintana waxa ugu horeysa waalidkaaga inaad samafasho kelmadda labaad waxa weeyaan buu yiri waa jiim waa jur'ah waa inaad dhiiranaataad ku dhiiranaataa inaad ganacsiga geliso meesha ku habboon
oo risk taker aad noqotaa kelmadda afraad waa alifka buu yidhi alifku waa udub dhexaadka wana ugu muhiimsan waa ammaana ammaano naftaada ah diin muxuu ahay dadka wax ka iibinayso iyo dadkaagaba ka afraad waa maxay buu yidhi waa ra'da buu yidhi ra'du wuxuu yidhi waa ruwaya weeyaanoo waa inaad si degan go'aanka u qaadataa oo go'aanka aanaad ku degdegin ood ka fiirsataa marka qaadatana ku dhaqaajisaa ka ugu dambeeya waa maxay buu yidhi waa hada waa hibatun min allah tijaarada ilaahay baa bixiya ganacsiga nasiibood ku heli kartaa laakiin furaska waa inaad raadsataa furaska markaad qabatana waa inaad ka faa'iidaysataa wuxuu yidhi ninkii 5 kalmadood baan qaato imika sanadkii 2014kii wuxuu noqday ninkaasi taladuu qaatay ninkii ugu ibdaaca badnaa ugu creativity-ga badnaa dalka sacuudiga xagga tijaarta marka laga hadlayo waxaan ula jeedaa kalimaadkan maanta culada ma ka maqlaynaa waa kelmado nolosheena bedelaya kalimaadka sidaan uga faa'iidaysan lahayn iyo sidaan u dhagaysan lahayn waa qodob aad u muhiim ah runtii aad baan u ammaanayaa qolada soo aababisho ansaaru sunna ilaa khayr siiyo leeyahay intaasaan ku soo koobay wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiye professor mubaarak aar gudoomiyaha jaamacadda beder waktigii baa isguraya waxaa runtii in badan loo mahad celiyey bahda ganacsatada oo dowr iyo kaalin aad u muuqata runtii hawshan ka qaatay gudoomiye cabdikariim maxamed iid baan islahaa si uu cudur daartay wuxuu yidhi waxaad ku wareejisaa saaxiibkii kayse shukri marka kaysaan halkan uga yeedhayaa isagaa magaca ganacsatada ereygoodii odhan doona soo dhowow kayse بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد دمان أمضى مسلمين تا كان اسكوكو تيميد أنون كلا سارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ميكروفون كومان سودي أرجروبين أو وانا بسامو الكاسان فدي عبد الكريم بدي كلمة لها wuxuun baan tabayaa dowrkan waxaynu maqalnaa hay-ad baa sponsor garaysay siminaar noocaas oo dumarka ah arrin noocaasa hay-aduun baynu maqalnaa waxaan is leeyahay doorkii ganacsatadu waxay ahayd inaanu sponsor garayno muctamaradan oo kale oonu hanti ku bixinno insha allah waxaanaanu rajaynaynaa inaan ka dambe aanay qabanqaabin hay-ad aan awood badan u lahayn inaanu ganacsato ahaan qabanqaabino muctamarka dambe hargeysa lagu qaban doono culimada waan soo dhaweynayaa insha allah waynu ka faa'iidaysan doonaa mikrofoonkanna iyagaa leh oo inagu dee waxaynu kolley mahadnaquun bay tahay waan u mahadnaqayaa waa idinku soo dhaweynayaa magaalada aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay kayse shukri dee waa ganacsatadii oo lacagtiina inaga haya mar hadduu ballanqaad sameeyeyna sanadka dambe waxaynu ku talagelaynaa wax weyn haddii ilaahay yidhaahdo culimmada intaa timi labalaabkeed inaynu dalkiiyo dibaddaba ka soo ururinay insha allahu waxaa ii hadhay oo keliya 3 erey ee ugu dambeeyey siyaasiyiintaan rabaa inaan erey siiyo laakiin waxaan ku bilaabayaa mid ka mid a culimmadii oo siyaasiyiintii naga galay markii hore culimmadayadii waaweyneed buu ahaa iminkana siyaasiyiintii waaweyneyd buu ku biiray waa mid ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada sheekhaygii waxaan u yeedhayaa sheekh axmed dayib oo ku magac dheer ku caddeeye waxaanan filayaa markuu iminka baarlamaankii dhex fadhiistayna ku caddayntii unbuu bilaabo qur-aanka laftigiisii buu iminka ku caddeeyaa sheekhaan markaa doonaya inaan ereygiisa siiyo soo dhow sheekh axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنونك لقد غادين مرت الشرف كهل كان سجود تمد
waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horrayn ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala allah inaga dhigay dadka muslimiinta ah ina siiye amniga iyo iimaanka inoogu deeqayo nicamka faraha badan inaan tirin karin mahadda ilaahay kadib waxaan u mahadnaqayaa dhammaan culimada garaadada aqoon-yahanka waxgaradka jamhuuriyadda somalilan soo booqday oy ugu horreeyaan culimadu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan u mahadnaqayaa saddexaad mu'asasadda ansaaru sunna ee mu'tamarkan qaaliga ah qabanqaabadiisa iyo yagleelkiisa lahayd iyadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku mahadnaqayaa dhammaan culimada dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada iyo cid kasta oo jamhuuriyadda somalilan ka tirsan oo soo ajiibtay mu'tamarkan soona dhoweysay culimada iyo marti sharafka guud ahaan mahaddaa kadib waxaan leeyahay culimada waa ogsoonahay culimada ilaahay tabaaraka wa tacaala halka uu dhigay inuu ku lamaanaysiiyey markhaatigiisa iyo markhaatiga malaa'igta shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ulul cilmi qaa'iman bilqist waxaa ogsoonahay culimada inay yihiin sidayaasha dhaxalkii ambiyada gaar ahaana nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam marka waxay naga mudan yihiin culimmadu oo keliya inaan u ducayno aynu ka mid noqonno jamaca u ducaynaya siduu nebi maxamed inooga warramay calayhi salaatu wassalaam ee xataa malayga ama kalluunka badda ku jira uu ka midka yahay waxaan leenahay culimmada jazaakum allahu khayr ilaahay ha idinka abaalmariyo kelimaadkiisana allaha noogu anfaco culimada iyo cid kasta waxaan leenahay jamhuuriyadda somalilan waa idinku soo dhowaynaynaa jamhuuriyadda somalilan calankeeda waxaa ku xardhan towxiidka dastuurkeeda waxaa ku xardhan ku dhaqanka shareecada waa dal muslim boqolkiiba boqola dhammaan caalamka islaamka iyo walaalaha soomaaliyeed ee shantii soomaaliyeed afarteeda kale ku noolba waa ku soo dhowaynaynaa qacmo furan niyad wanaagsan ayaa ku soo dhowaynaynaa waxaan leenahay soomaali meel kastoo joogaan wax cunfiya noo haynaa ma jirto hal arrin waa jirtaayoo dee qarannimada waa ku adagnahay insha allahu tacaala wayduna nala ilaalin doontaan wax kaleana ma jira haddaa aragtaan annagoo yar adadag dee qarannimadunbaa ku adagnahaye soomaalinimana nacayb noguma jiro muslim kalena nacayb noguma jiro cid kasta oo muslimiinta ka mid iyo soomaalida gaar ahaan culimada iyo dhaqankaba cid kastoon afku dable iyo qacanku dable ahayn si mugland ugu soo dhoweynaa jamhuuriyadda somalilan waxaan kaga baxayaa culimada waa idin soo dhowaynaynaa dalkiinnii baa timaadeen nagu soo noqnoqda waana idin soo dhowaynaynaa wajazaakum allahu khayr saaxiibkay xamsano waxaan leeyahay culimada kama bixin waxaan ka mid ahay culimada isla markaana waxaan ahay ka mid ahay siyaasiyiinta dee waa inaan ragga dheer hee culimada inaan ka baxay u qaadan wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullah aad buu u mahadsan yahay sheekh axmed aniga laftigaygu ma odho uu ka baxay waxaan idhi isagoo culimadii buu siyaasaddii naga galay marka waa uun tayta labaad buu sii kordhistay waanan hubaa runtii meesha isaga iyo sheekh sokeeye iyo ay fadhiyaan iyo dee malaha guddoomiyaha baarlamaanka laftigiisa qolyo badan baa maalmahan dhoweed un bartay inuu culimadii waaweynaa ka mid yahay aan ogeyn raggaasi meeshay joogaan inaanay leexanayn waa u rajaynaynaa idamka ilaahay ilaahay ha barakeeyo qolyo badan baa maanta o dhan i xadantaynayo lahaa dee qolyahayagii dhallinyarada ahaa ee wax doortay laba nin baanu xoog ugu codaynay oo ninna cabdikariim buu ahaa ninna barkhad buu ahaa oo deedna waxay leeyihin barkhad maad ereyga siisid maxaad meesha ugu yar adkaynaysa yah uu cudur daartay guddoomiyahaygii baa fadhiyay isagaan ereyga markaa ku maamusay buu aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa labadii erey ee ugu dambeeyey baynu markaa odhan doonaa waxaan u yeedhi doonaa wasiirka wasaaradda awqaafta
sheekh khaliil cabdilaahi axmed oo ereygiisa inoo odhan doona kadibna markaa waxa weeyaan guddoomiyaha baarlamaanka inoo soo xidhi doona soo dhowow fadiilata sheikh ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها قلها وكيل لذا حلبان لذا قلها وكيل لذا علماء الدين كشرفت بدن قرادة إيو قاسيدة إيو صلاة دينتا قناعسة دنيارة هولي إنما با بهذا ميديا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل كلمة دي وحنا سواد كفر دونتا لكن حاجة طمين نغطي وحنا لها كلمة دي دعوة كور رميسا أو أفق عربية أو لغة دين لبعضها كبحيسا أنا نسلها ما دام عالم خلينا لقى دعونا يو والولد جارها نيروبي إن الآد لغة يجيو حنا يا وهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله مرتي شرفت وحنا طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ولا الليال دعوة يكون ديميت كان مؤتمر كأه يعني سونمي ومهمتي يهوشي أنبياء وحنا الرئي إلهي سبحانه وتعالى والداعية والله يدعو إلى دار السلام إلهي بأنه باقية دارت الجنة يوحي اللي قل لها سلوك له أنبيادي أي إلهي سبحانه وتعالى وكور رميا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أنبيادو واحد ذكر وباقيان كلمة توحيدك رنتي مسلمين تا أي كسو قلهم حين ضابك إسلامك لكن الدون الحقيقيان أنت نولش ولا أود أقول ليهين شكنا ملها إن قفنا كلمة داقة شرف يالنا يو ذلك لوها يانا شرف يالنا يو وذلك إنه كمدي هاي ذلك عالم كإسلامك دمان تدبا وسببت نجهر يو نحرست إلهي سبحانه وتعالى كشقين الدعوة يدك خير كلا جارسيو الله وحلي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إلهي نحرستي وحكو حري دعوة ولا غشقيه سدا إلهي الباب سبحانه وتعالى وسببت لو غاريو قوش إلهي وتلمامي كوحدة مسلمين تعا يقول ليسنيسا كنتم خير أمة أخرجت للناس وحاها إذن ضل صوصارو ضل صوصارتي وخير كبدنايد وحاكو أشان تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلهي اللي دعوة وتاسم بكشق عيسى علماء أساسي نقوي مادين درين كاين النقليان وحوية فلا حبيلك هلينا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كل اللي باني وانت كوحدة وي وما دكمتك سكو كالمي سنية إن دتك أي دينتا يخيرك أغباغان وحويا تواب لقبل حنا يوم إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسي الدلب كيسي إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ضد يو إلهي رمي كم هذا أبوح أهاتان هو إلهي أهيلنا سبحانه وتعالى إلهي وقرقاريا إلهي نقرقاري نقوم بحنا إنك لا يأسو قرقارينا والله يلا
maxaynu ka faa'iidaynaa kulankeennan faa'iidada ugu muhiimsan ee ugu ballaaran waxa weeye in lagu ilaaliyo nafta oo inxiraafka iyo qallooca laga dhowro sida mukhadaraadka tuugada shahawaadka kala duwan in laga durko waa inaynu ku kacno waajibka dacwada ee iimaankeena iyo quluubteenna xoojinaya sabab bay u tahay amniga iyo ammaanka inuu nagu faafo oo kuwa kufriga iyo dalalka ku jira iyo baadiyeenta aynu iska kaalmaysanno isna hortaagno bilatihi iyo axsan waxay ka mid tahay inaynu qaadno hamiga muslimiinta inaynu u warwarino diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah oo inagu warwarino waayo rasuulku waxaa culimmadu yidhaahdaan wa min annaasi man yaxmilu hama alislaam wa min annaasi man yaxmilu alislaamu hama dadna iyagaa qaada warwarka dadka muslimiinta u qaada oo waa culummadii qaarna islaamka ayaa warwarkooda xambaaroo qaada waxaan isugu nimi oo aynu mu'tamarkan loo qabtay inaynu hamiga islaamka qaadno xambaarno oo aynu u warwarno ubadkeenna oryaheenna dalteenna iyo dadkeenna dabeetana caalamka iyagana aynu gaadhsiino farxad bay noo tahay dhammaanteen inaynu martigelinno kulandiimeedkan qiimaha leh ee walaalaheen aynoo soo qabanqaabiyeen sharaf iyo qiimo inoo leedahay karaama inoo leedahay waxay noo tahay wax lagu wada farxo in badan baa dadkeennu ku dadaalaan khayrka iyo wanaagga markay caalamkeenna la arkaan inaynu khayrka marti gelinayno waayo dhaarteenna distooriga ayay ka muuqataa dhaarteenna distooriga xildhibaanada iyo annagu waa ku dhaarannay oo qof kastoo mas-uuliyad u qaada qaranka somaliland uu qaado waxaa u horreysa waxaan ku dhaaranaya magaca ilaahay inaan diinta islaamka daacad u noqonayo adeega diinta islaamka inaan daacad u noqonayo marka shayga u horreeya aynu daacad u noqonayna ilaalinayna waa diinta wixii la halmaala diintu waxay xifdinaysaa naftii caqligii maalkii sharaftii iyo haddii la ku reeyahay sharaftii oo cirdigiisa iyo nasabkiiya oo nasalkiiya intuba waxaa la doonaya inaad ku qiimayso shareecada waafajiso diinta aad waafajiso ayuunbaa loonooga baahan yahay ugu dambayn waynu ducaynaynaa marti sharafta dhammaan rag iyo dumarba waxaanu ducaynaynaa madaxda qarankeega ka soo jiibtay kulankan waxaanu u mahadnaqaynaa cid kastoo kaalmaysay oo ugu horreeyay madaxweynaha qaranka somaliland mudane muuse biixi cabdi oo runtii hawshanna aad iyo aad ula socday isla markaana magaciisa aan ku soo dhoweynayno oo aan idinku salaamayno mar labaad sidoo kale waxaan leeyahay cabdirasaaq dee darwiish baabad ahayde mooshi janaka halkaas ka keentaye waxaan ku leenahay darwiishnimadaadiina saaxiib awow soo celiyo darwiish baynu nahay kastoo gudoomiye baarlamaanka gudoomiye wakiilada fadhiyo iyo ogaas garaadkii marka ayaan ka idin qaadanaya magaca ma bixin kare haddaana iyagu laftooda ogolaanin oo magaca siinin laakiin waxaan odhanaa janaalnimada dee garaadnimadii iyo muxuu ahaye waxaan ujeedaa darwiishnimadii oo kasoo horjeeda sayid maxamed cabdulla xasan oo ahaa dee daacigii weynaa ee ummaddan iyo dalkanba ku talagalay inuu ka xoreeyo maxaan ku dhahday muxuu isticmaalkii ugu dambayn aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cid kastoo kasoo qayb gashay waqti fiican soo siisay waynu ku faraxsannahay walaalahay inaynu soo dhaweyno waynu ku wada faraxsannahay inaynu diinta ilahay u shaqayno ballan baanay naga tahay ilahayna waxaan ka baryaynaa wixii inaga qaloocsamo kolba inaynu wada toosino inagoo islaax uga jeedna oon cidna cid ku riixaynin waayo waa shaqaynu wada leenahay hadday tahay shacbi laakiin waxaa laga maarmaana mar kasta inay halbeegeennu waa culume culummadeenna aynu isdaba taagno xukuumad iyo shacabba culummada inaynu isdaba taagno culummada inoo bayaamiso culummada caamiliinta ah khayrka badan mar kasta wada ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu kulankeenna barakeeyo wasala allahuma wasalim calaa nabiyina maxamed mala waxaan u malanayaa meed kusoo dhaweeyaa gudoomiyaha
way marka hore israacin lahayd aad iyo aad buu mahadsan yahay sacaadat alwasiir isagay ahayd inuu ku soo dhoweeyo guddoomiyaha baarlamaanka laakiin waxaan is idhi farriin weyn oon idiin sidaan is idhi ka horraysii ma farriintaan idiin horraysiiyaa mise guddoomiyahan idiin soo horraysiiyaa farriintaan idiin sheegaa guddoomiyaha lagama daba hadla soo ma waay horta waxaan aad ugu mahad celinayaa runtii bahda laliska oo madasha runtii inta fadhida labanlaabkeed baa toos u daawanaysa dunida dacaladeeda oo dhan ka daawanaya iyagana halkaasaynu farriin uga daraynaa aad iyo aad baa u mahadsantiin baynu leenahay gelinkan hore maanta furitaan unbuu inoo ahaa madasha gelinka dambe afartiyo badhka inoo bilaabmaysa haddii ilaahay yidhaahdo waxaana kulanka ugu horeeya inoo geli doona ma idiin sheegaa mise waa iska iman doontaan una markaasunba arki doontaan ya waay may waan sheegayaa maanta waxaa generaalku wuxuu dhaha sheegin laakiin culimmadu waxay isku waafaqeen in la sheego muxaadarada ugu horraysa waa marti qaaliya oo meel dheer ka soo safray marka in la sheegaa waxay keenaysaa in qaarkood halkan duhurka sii seexdaan buu yidhahdaan tegi mayno soo saa maaha waa yahay martisoorkana waa laynagu yaqaanay waxaa haddii ilaahay yidhaahdo kulanka casarka inoo bilaabi doonaa oo madasha ugu horraysa inoo furi doonaa sheekh cabdirashiid cali suufi warkaa waa iga haysaan soo maaha muxaadaro labaad baa raaci doonto oo iyaduna ciwaankeedu cajiib yahay ma idiin sheegaa taa iyada sheegi maayo waxaan u yeedhayaa guddoomiyaha baarlamaanka oo madasha inoo soo xidhi doona madasha marka uu guddoomiyuhu soo xidho kadib waxaynu culimmadaynu fasixi doonaa kadibna dadkaa bixi doona afarta iyo badhka madashu way bilaabmaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan in casarka halkan lagu soo tukado madashana afarta la wada yimaado afarta iyo badhka codkii sheekha iyo muxaadaradiisii oo wada socdaa aynu halkan ku wada raaxaysanno soo dhowow guddoomiye naga raalli ahow in badan baanu aad noo fadhiday inoo soo xidh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماءنا شرفت له هل كان فرد أومانتا dhammaan barotokoolka lagu fadhiyo iyagu iska leh shacabka ka soo qayb galay ee soo sharfay ee soo karaameeyey culummada ee halkan fadhiya dhammaan madaxda kala duwan hadday tahay kuwa private sectorka iyo hadday noqonayso kuwa dowladda oo xildhibaanada iyo xubnaha xukuumaddu ay ka mid yihiin oo ka fadhiyo saaxiibkay walaalkay sheekh khaliil cabdilaahi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baynu u mahadnaqaynaa mahad iyo ammaan aan la koobi karin waxaynu u mahadnaqaynaa mahadda ilaahay iyo ammaantiisa kadib mu'asasada ansaaru sunna oo soo qabanqaabisay kulankan aynu leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahay subxaanahu watacaala wixii aad ku bixiseen ee aad la baxdeenna allah idiin barakeeyo wixii aad la hadheenna allah idiin barakeeyo waxaad qabateen camal weyn aynu rajaynayna ilaahay subxana wataala agtiisana inuu ka wen yahay annaga iyo intayada ka soo qayb gashay inta ka faa'iidaysan doontaana aynu weynaynayno waxaynu u mahadnaqaynaa culimmadeenna oo runtii ay sharaf ugu filan tahay inay dhaxleen oo ay sidaan waxaan idhahdaa dhaxalkii nebiyada inay sidaan ay sharaf ugu filan tahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa culimmadeenna waad ogtihiin oo azamaadkii ka dhacay ummadda soomaaliyeed 40kii sannadood ugu dambaysay ee ay dunida ku kala firidhay waxay ka qaadatay culimmada soomaaliyeed meel kastaba ha joogeene waynu ognahay mas-uuliyadda koowaad ee ina saaran guud ahaan inaynu ummadda u ilaalino qiyamkeeda iyo caqiidadeeda waxaan runtii uga mahadnaqayaa dowrka ay ku lahaayeen iyo meel kasta oo ay dadkaasi tageen inay kaga daba tageen oo u ilaaliyeen oo maanta meel kasta oo ay joogaan ummad ka muuqata inay yihiin ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee aad baan culimmada ugu mahadnaqayaa jazaakum allahu khayra aljazaa
waxaa runtii ay inaga qaadeen mas-uuliyad weyn oo waajib cayniya ahayd oo haddii cid ka midi aanay isu taagin ciqaabteeda iyo cadhada ka dhalata ay khatar gelin lahayd jiritaankeenna dhammaanteed waxay badbaadiyeen inteenna halkan fadhida iyo in badan oo kale oo ummaddaas guud ahaan soomaalida ah iyo ummadda muslimiinta ah shaqadaa ay qabteen ay inagaga wakiil ka noqdeen ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa inuu adduunkooda ugu barakeeyo aakhiradooda ugu barakeeyo ubadka ugu barakeeyo oryaha ugu barakeeyo cidhib wanaagsanna ay ka tagaan insha allahu tacaala intaa markaan ka gudbo run ahaantii waxaan rajaynayaa muxaadaraadka iyo cilmiga ay culimmadu gudbin doonaan inaynu si weyn uga faa'iidaysan doono oo dadaalkaa ay bixiyeen culimmada iyo mu'asasadu ay noqdaan kuwo aynu ka faa'iidaysanno oynu aqoonta ka qaadanno haddii ilaahay raalli ka noqdo culimmada waxaan kula dardaarmayaa waxaa beryahan soo badanaya sayxaad ka soo yeedhaya daafaha meelaha ummadda soomaalidu degto oo soo badanaya waxaan rajaynayaa inay aada u tarkiisiyaan waxaa aad inoogu soo badanaya in lagu dhiirado maxaarimta ilaahay oo ilxaadku ugu horeeyo oo aada u soo kordhaya waxaan rajaynayaa culimmadu inay aada u tarkiisiyaan waxaa soo kordhaya akhlaaqiyaadka caamka ah oo aan isleeyahay waxaa wax badan yeelay social mediaha iyo xayaagii iyo xishoodkii oo aad iyo aad moodo in loogu dhiiranayo waxyaaba badan anoo ugu horraysiinaya cidda ay mas-uuliyaddu saarantahay inay culimmada tahay muruu'ada qofka muslimka ahi waa wax weyn waxaad arkaysaa dad waxyaaba ay ku hadlayaan laga yaabo aanay laa'iq u ahayn naftooda iyo ummadda ay la hadlayaanba arrintaas inay aada u soo kordhayso marka inay arrinta akhlaaqiyaadka caamka ah iyo xishoodka iyo martabada uu diinta iyo islaamka iyo ummadda muslimiinta ku leeyahay dhexdeeda iyadoo ay culimmadu ugu horeysana muruu'ada qofka muslimka iyo qiimaheeda inay arrintaa iyadaana awood badan saaraan insha allahu tacaala ugu dambayntii anoo mahad ballaadhan ilaahay u jeedinaya culimmada wuu mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya afka dowladda iyo shacabka labadabana waxaan leeyahay soo dhowaada insha allah wixii taqsiir ee aad naga aragtaana noogu dulqaata haddii ilaahay idmo aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xidhi mayno ee waynu furaynaa iftitaaxa mu'tamarkan socon doona 4 cishaynu furaynaa waana idiin furaya insha allah jazakum allahu khayr aljazaa culimadaynu fasaxayna haddii ilaahay yidhaahdo kadibna inta kale martidaa baa bixi doonta